السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا channel كيغا كسمايا حواج كوكين maanta waxaan rabaa inaan kariyo muufadan iyo maraqan oo jeedaan insha Allah waxaan rabaa inaan idinla share gareeyo hadda waxaan rabaa inaan ka bilaabo burka iyo khamiirka sac isku qasi lahaa meeshan khamiira igu jiro laba qaandan ku shubanayo oo jeedaan haddana waxaan rabaa inaan ku shubto caanaha iyo ukunta laba xabo ukun aan ku shubaa وجدان هذا waxaan ku shubanaa caanaha hal bakeeri caana loo baahan yahay qaboob ha noqdo qandac ha noqdo it doesn't matter caadi waaye waxaan ku shubanaa hal qaando oo sukar because sukarta wuxuu kaalmeena wuxuu ka dhigaa guduud kisto markaa karinaysid kisto brown amlu ka dhigaa haddana waxaan ku shubanaa insha Allah burka marka qiyaasta burka horta waxaan ku shubanaa 2 koob because markaa qasaysa burka waxaa loo baahan yahay kiskis inaa ugu shubtid marka hadda waxaan ku shubanaa 2 koob oo burkan oo cadkan ku shubanaa insha Allah haddana waxaan kala rabaa inaan ku shubto brownka maxaa brownku waa fiican yahay asigane waxaan ku shubanaa 1 koob waa ujeedaan marka saa isku ugu shubo hadda waxaan rabaa marka inaan ku shubto biyo marka biyaha 1 koob ma ahan half ku shubanaysaa bakeeriga caanaha u isticmaalo waay marka qasidaan ku bilaabaya markaan qaso aan arko inuu kistir oo isdhaxgale oo kale insha Allah waxaan soo daraa haddana koob kale oo bur marka koobkan bur kiskis aan u isticmaala kulli ma ku wada shubay because waxaan diidaa hadaan kulli ku wada shubo qasida waxa waa burkii culeyskiisa iyo qasidiisa kisto wuxuu igu noqonaa dib marka waxaan u sameeynaa tartiib markiisaba waxaan ku shubaa kis yar ilaa aan ka dhameeyo insha Allah marka waxaa loo baahan yahay qasid fiican marka qasaysid muufada mar haduu qasida uu ka halaabo gudaha wuxuu ka noqonaa couscous khamiirkan waxa waa meel isku aruura like couscous uu noqonaa asigana marka make sure samee mar walbo ina si fiican u qastay burka insha Allah marka burka kistig ugu dambeeyay aan wax yar kaga darsanaa because waxaan arkayaa biyo amal waaye si fiican saa aniga rabo wali burka ma iskugu imaan marka insha Allah intaas yar ay soo haray marka intaan waa iska celinaa ma ku darsanay because enough waaye ma aha laazim intaan yar soo haray ku darsan ma aha waxay hadii mar uu qiyaas ka halaabo wixii waa halaaba marka waa aragteen saa hadda burkaan aan u qastay aniga qasida mar haduu ku tooso muufada way ku fiicnaan mar haduu qasida ka halaabo waxa waa muufada uu ka halaaba muufa caadi oo guri lagu sameeyay waa tinaar ma ahan foorno leen ku dubanaa marka dadka oo qurbaha joogan dhan waxa waa tinaar dib boosaan ku helno inkastoo uu yaalo laakiin dib boosaan ku helno marka gacantan soo dhaqday waxaan rabaa wixii inaan kulli aan isku size ka dhigo markuu uu fuurayo burka hal mar isku kaco same size u noqdo markuu fuurayna waxa loo baahan yahay baaquliga ilaa iyo calaamadaas idin tusayo inuu gaaro maahan kasir inuu fuuro oo isla markaas dubida ku ordid ma si fiican inuu fuuro loo baahan yahay hadda meesha waxaan ku sameysanayaa malaay tamis kalluunka oo steak waaye bura meesha yaalo ujeedaan marka waxaan ku shubanaa half qaando oo kismaayo masala iyo waxaan ku shubanaa half qaando oo kismaayo xawaaj yaraan ku shubanaa waa ujeedaan because la'aantiisa ma wax yeeli kari ma isticmaali kari wax kale inaan laazim asi isticmaalo waaye because xawaajigeega guriga isticmaalo waaye waxaan ku shubaa olive wax yar olive waxaan isticmaalaa saliida horta noocan aan isticmaalaa waxaan isticmaalaa xawaajiga oo iyo waxay markaas marinaysto ma kala geenayo isku dajinaa isku guduhu ka galaa ma ka daadaadanay biyaha waa ka daadaadana laakiin saliida ma ka daadaadanayso marka this is the good way loo sameyn karo marka insha Allah hadda waxaan rabaa inaan si fiican u marmariyo cusbo yar aan ku shubo si fiican because waxa xawaajiga aan rabaa inuu si fiican uu lafta ugu galo markaasna kadibna burkaas aan rabaa inaan marmariyo markaan burka marmariyo saliid inaan ku dubo waa kana waa soo diyaarsaday waa dudubayaa waxaa malaayga u dubayaa inuu hadhow iga jajabin because wili karis kala u dhiman malaaygan
markaan saan aan u dudubo haddana karis kale u dhimo. marka intuu asi malaayan iiga sii karaayo hadda waxaan rabaa inaan sameeyo muufadii aan hadday qastay. okay, muufadii intaan qasida bilaabina horta koo waxaa waay birtaanaan soo diyaarsaday. birtaana waxaa marsanaa subag. saliidda waxaa ka fiican subaga in la mariyo markaa muufada noocan aad dubaysid. markaa asaas uma marisid يعني si fiican u marisid waxaa la rabaa meel walba inuu ka gaaro yani lacala haduu burka uu fido camal soo uu kaaga dhigin birta meel kale aan saliida lahayn. okay, hadda size-kan rabaa marka inaan idin tuso sida loo gooynayo. haduu kugu yaraadana saa ugu darsan lahayd. mar waxaa bini aadan tahay qiyaasta ka halaabi karo markaa goynaysid burka. waxaa laga yaabaa gacantaada wax yar inuu soo qaado oo haddana aad dhahdid oo waa iga halaayo maxaan sameeyaa ma ku celiya ha ku celinin. markaasaan u gooysid iskugu keentid burka waa ujeeda labadaada gacan inaad isticmaashid waaye. markaa meesha saartid waa yar yahay size-ka soo mahan. okay, hadda waxaa waay gacanta haddana biyo kusoo taabanaysaa haddana mid kale yaraa goynaysaa. markaa gooysid haddana waa isku keenaysaa. markaa iskugu keentid haddana waxaa korka ka saaraysaa gobolkii kale. okay, hadda sug baaquliga aan ka dhaqaajiyo aan idin tuso sidii yacni aa u fidin lahayd. iska fidi leh ma ahan waxaa loo baahan yahay si fiican inaa u fidisid. marka fidiska ani aan u fidiyo noocan waa ujeedaan. horta koo saanaan gacanta ku yeelaa waa aragtaan. because waxaan saan u sameynayaa godgodkaas yaraan rabaa meesha oo lahaanayo. because godgodkaas waxaa way hadhow markaa saliid mise waxa ku shubanaysid saliidi mise subag iyo meeshaas uu maraa uu galaa amiin. markaa fidinaysidna يعني si qiyaas oo fidi haweeneynin ilaa ay birta kulli ha kusoo wareejin qiyaas labis u baahan yahay. soo waa kana waa dhameyseen waa ujeedaa. soo hadda waxaa la gelinaa foornadan gashanaa. foornadeena 300 uu ku shaqeeyaa size-ka ani aan isticmaalo waa 300. malaay waa soo dubay waa soo bixiyay diyaar waaye. okay, hadda waxaan sameysanaa maraqii aan ugu talagalay. saliidda dhinacaas aan saartay oo kuleelka ahaa. hadda waxaan isticmaalayaa birtaan. okay, birtaan markaa isticmaalaya marka waxaan isticmaalaa basal yaanyo wax kasto ay ii diyaarsan waa ujeedaan. saliidana waa ii kululaatay. marka saliiddan waxaan bilaabaa inaan basasha ku shubto saa aan kariskii aan u bilaabo. mar walba waxaa dadaashaa basasha inay kasto ay gaduudato. basasha ceeriin wax kale ha ka dabageen ma fiicno. basasha mar walba waxay dhadhan lahaataa markay kalarka ay يعني واسبدله كلرك بصشي واسبدله always labada color waa isku daraa aniga. okay, waa macaan badan yahay. okay, markaasa isku dardaro ujeedin. mar walba waxa make sure sameysa basasha in mar waxa waa isku dhex jirjirtaa ma ogtahay inaa kala bixisid ku dadaal because waxa waa si fiican u karo. mararka qaar koodan waxa waa dadku iskaaga shubaan waa iska dhaafaan ma fiicna saas. yaanyada hadda ku shubanaysa waa ujeeda. yaanyadan waxaan jeclahay markaan noocan saan u sameysanayo kalluunka mise malaayga inaan yaanyada aan jarjarto oo ceeriinka isticmaalo iyo basbaaskaas ujeedaan. basbaaskaas always waa isticmaalaa waa aragteen la-aantiisa ma joogi kari. ma jecli inaan jarjaro run ahaantii because guriga ilmaha ii joogaan haddaan jarjaro waxaa raashiinku sii kululeynaa. marka mar walba waxaan jeclahay inaan saas le aan u isticmaalo. okay, hadda waxaan ku shubanaa kale oo meesha iigu diyaarsan oo ii yaalo huruudka waa jeclahay. huruudka isticmaala kasir waa ujeedaan. wax badan hadda ku shubtid gacmuhu ka haleena farahaaga dhan yellow ka dhiga ma fiicno. waxaan isticmaalaa kale ismaaya xawaaj oo half spoon inuu qaandada yar aan isticmaalaya. marka mar walba waxaa make sure sameysaa inaad gidgidisid ha dhaafin markasto ha ku dhaafin yani saliidda iyo yaanyada iyo istaaftaan zaa'id ha ku dhaafin. mar walba gidgidi yani si fiican uu kuugu karaa. mar walba waxa waaye hadda wax saas mar walba aa walaaqid raashinka waa macaanaana. hadda waxaan rabaa inaan ku shubto kabsar iyo toon aan ku soo shiiday aan rabaa inaan ku shubto. dadka qaarkood saliidda kuleel ku shubaan ani ma jecli. hadda waqtigan camal saan markaa waxaan isku dardaro aan jeclaynaa kabsarta iyo toonta aan gadaal kaga shubto. marka mar walba waxaa u baahan tahay adeegyada gudidka saa idin sheegay aa loo baahan yahay. okay, hadda waxaan isticmaalaa kale aan gadaal ugu shubanaa maraq maajiga. noocaasna waa isticmaalaa noocyo badanaa jiraan aan isticmaalo bis laakiin noocan
waxa way markaan malaayga karsanayo noocaan aan jeclahay inaan isticmaalo. waxa way dhadhan uu leeyahay, dhadhanaan camal ku jiro. waxaas hadda aan ku ritin waxa way subag. subaga waxa way caraf uu leeyahay, wuxuu carfiyaa raashinka. waxaan anigu u jeclahay subag inaan isticmaalo, raashinka uu carfiyaa. subaga aan isticmaalayna waxa way caanaha kasir ku badan, subaga ku yar. okay, hadda waxaan ku shubanaa barbarooniga ujeedaan. barbarooniga mar walba waxaan jeclahay inaan gadaal ugu darsado. dadka qaarkood waxay jecel yihiin markay basasha waxaas ay dudubanayaan inay markaas ay ku daraan, ani ma jecli. mar walba waxaan jeclahay inuu asaga ugu dambeeyo. haddii kale hadduu kariska ka bato qaraar uu noqonaa. malaayga hadda aan dubay aan si tartiib aan geesaha saas ugu saarsaaraa. ma rabi inaan gadgadiyo because malaayga waxa way malaay khafiif ah, waa steak waaye, dhaqso u jajabaa. okay, marka saasaan sameeyay. hadda waxaan ku shubanaa creamkan hadda aan idin tusaayo iyo kabsar. creamkan waxa way hadda adi haysanin coconut milk, waa qumbaha caanihiisa, waxa isticmaali kartaa noocan. waxba ma haleynayo, yani waa dhadhan fiican yahay, waana caraf badan yahay. so aniga haddaan isticmaalayo aan qabin naarjiintaas, waxaan isticmaalaa caanaha noocan ah. haddii lacala reer Mareykan tahay waa soo gadan kartaa, dukaamanka waa yaalaa. haddaa reer Yurub tihiina arano markaas ku heli lahaydeen, laazim waa qabtin magaca kale uu leeyahay. waa dhameeyay marka waa ujeedaan. okay, hadda waxaan rabaa inaan idin tuso muufadii soo noqday hadda hoos geliyay. waa kan hadda waxaan kor ka marinaa subag. saan idin sheego waxa hadda gudgudkaas aan ugu sameynay subaga mise saliida ugu talagashay inaa muufada ku kor shubatid soo meesha uu dhex fadhiisto. ani subagaan aan isticmaalayaa, saan aanu isticmaalaa. markaan saan aan u marmariyo aan u dhameeyo, markaas waa qaada saxan gooni aan saartaa. geedahan waxaa meesha ugu xirxirisoo birta iiga gubanin. dadka badanaa way weydiiyaan maxaa baa waxaas maxaa ka wadaa. waxaa meesha ugu xirtay inuu birta yacni iiga gubanin, meeshaas caagu ka yahay. muufadii waa kuwaa soo diyaariyay waa ujeedaan. hadda waxaan saxanka ku shubanaa maraqa insha Allah. muufada dhexdiisa horta idin tusisuu yahay, gadaal fiiriya kalarkiisa ujeedaan. dhexdiisna fiiriya insha Allah. muufo adeeg ma ahan, muufo jilicsan waaye oo fiican oo waqti walba aad karsan karto oo easy ah. wax walba oo easy waxaan jeclahay walaalay inaan idin la share gareeyo. marka hadda maraqii aan kariyay aan diyaariyay, dabka leen u gaabiyay waa ujeedaan. waa kana saxankayga soo diyaarsaday. waxaan rabaa inaan maraqa aan ku shubo. marka walaalahey waxaan kariyo mar walba waa idin tusaa, waxaan ku daro waan idin tusaa. idinkana aad iyo aad u mahadsantihiin. mar walba markaan waxaan idin soo geliyo waa soo wacataan, waa idinka caawiyaa, waa ogtihiin. haddaa su'aal qabtiin waa idinkaaga jawaaba walaalaheyga anytime. reer Yurub waqti waxay soo wacaan waa 4 in the morning waa ka qabtaa, waa answer gareeyaa telefoonadooda. kheyr Allah siiya ayagana. mar walba waxaan jeclahay qofka walaalka inaan caawiyo. marka malaaygan weli ma soo gelinin, waa igu cusub yahay. wuxuu ku cusub yahay YouTube-keegi iyo Snapchat-kaba. marka dadkii Snapchat-ka igala xiriiri jireen ayaga waxa maanta igu qasbeen maalin walba dhahayeen abaayo YouTube-ka ku noqo, abaayo YouTube-ka gal. aan YouTube-ki waa soo diyaariyay walaalaheyga waa ujeedaan. malaaygaana waa idin kariyay maanta. ma idin kugu soo tusin Snapchat-keega. inta bisa hadda aan ku bilaabay. marka insha Allah waxaana jeclaa aan rajeynayaa cuntooyin badan oo noocyo kale ah inaan bilaabi doono hadda kadib. aan idin la share gareynayo kuwa hore u soo kariyay ma ahne noocyo kale. kale hadda maanta waa kana waan idin tusay. waxaan idin kariyay casho fudud waaye insha Allah biidhnillaahi kariim. waxaan jeclahay mar walba inaan saan wax fiican idinkugu soo geliyo, aan idinka caawiyo wax walba walaalaheyga. aad iyo aad u mahadsantihiin. kheyr badan Allah idin siiyo idinkana. Thank you for watching.